الشباب بين الواقع والأمل. طبال هدي له سoo qabto muslimiinta waa xagga dambe farad hadi la soo qabto muslimiinta waa xagga dambe murqmurq hadi la soo qabto waa xagga dambe shaygi sida loo taago waa xagga dambe oo aan iyagu noqon dameeridaan raacday iyagu wax walba iska dabaga hadii dhafoorka la xiirto way xiiranayaan hadii marada la isku dhajiyo way isku dhajinayaan hadii la isqaawiyo way isqaawinayaan hadii la isjeexjeexo way isjeexjeexayaan uma kaasad wax ka sugaysa رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا ليال caawa sida walaalkeenba uu ku bilaabay dhammaantiina aad ku arkaysaan cinwaanka meesha ku qoran waxa weeye aan caawa wax yar ka taabanaya oo aad u guda ballaaran waa الشباب بين الواقع والأمل cinwaanku waa af عربي waynu ku faanaynaa kitaabkeena alla ku soo dejiyay rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam baa ilaahay ku soo diray way roonaan lahayd caawa inaan cinwaanka laftiisa af carabi ku hadlayo laakiin qadarullahu ma shaa facal waxay xikmadii tahay inaan luqadeeni maxalliga ah afkeeni gaarka ah ku hadlo marka waxay kalifaysaa erayga cinwaanka inaan af Soomaali u bedelo الشباب وفي صومالي ودلنيرو واقع ونرشا إنه كل احتر أمل ووحين هيكسنة إنه رجينين مركا أنكوه الرئيو إريا كلمة اللي الشباب أفكار عربي ذا لغة أهم وحي أتشهد والله استعمال حق أفكار عربي ذا النماء والقوة كوبع يحب كوبع يحب الشباب eraygaasi waa jamac waa wadar midkiisu yahay ama mufradkiisu yahay shaab mararka qaar koodna waxa lagu jamciyaa shubaan ayaa lagu jamciyaa waxa kale oo afka carabiga la yiraahdaa shabaab shayga shabaabnimadiisa waxa la yiraahdaa ay awaluhu waa intiisa hore hadaa tilaaho waxaan hebel la kulmay shabaab an-nahaari maalinta bilowgeedii yaani waa maalinta gelinkeedii hore hada waxa u baahan eraygan inaynu fahanno ilaahay wuxuu nolosha ina siiyay raasamaalka ilaahay ina siiyay markuu ina abuuray ee bini aadan inaga dhigay ee dadkii makhluuqaadkii kale inaga fadilay inaga sarreeyay oo nicmo ah in ilaahay ku abuuro waa nimco in ilaahay bini aadan ka dhiga waa nicmo lama oo ka fadila makhluuqaadkii kale ka dhiga waa nicmo laba oo ilaahay ina abuuray oo bini aadan inaga dhigay oo ilaahay ina abuuray ina fadilay cimri buu raasamaal inoo siiyay cimri buu ilaahay raasamaal inoo siiyay cimrigaasi markaynu soo ururino culimadu waxay leeyihiin shabaab wixii ka horeeya waxa la yiraahdaa marxalatu الطفولة la yiraahdo wixii shabaab ka dambeeyana marxalatu shaykhuukha la yiraahdaa marka la soo ururiyo idan saddex marxaladood oo muhiim ah ayaynu maraynaa marxalatu الطفولة waa heerkii caruurnimo iyo heerkii dhalinyaranimo iyo heerkii duqnimo maxaa u daliila sidaa maadaama dadku muslimiin yihiin waa inaan kitaabkiiyo sunnihii ku noqonnaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka suuratu nuur wuxuu ku yidhi waidaa balaga alatfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu kama sta'dana aladiina min qablikum
markay atfaashu gaaraan wayda balaqa al-atfaalu minkum al-hulum markay qaangaar noqdaan falyasta'dinuu idan haydin weydiistaan sidii kuwii idinka idinka horreeyayba idan idin weydiisanayeen rasuulka xadiidkiisana waxaa ku yimid sala allahu calayhi wasalam rufica alqalamu can alaain qalimka saddex waa laga kor qaaday oo dembi loo qaban maayo waxaa ka mid a saddexdaa can inaa'imi xataa yastayqid qofka hurdaa ilaa u tooso wa can isabiyi xataa yashibba ilmihii yaraa ilaa uu shaab ka noqdo wa can ilmactuuhi xataa yacqil qofkii waashay ee caqligii ka tegey ilaa caqliga u soo noqdo oo caqligii iyo garaadkii dib ugu soo noqdo oo waalidii ka ba'do hadduu waalan yahay takliif ma saarna hadduu ilmo yar yahayna takliif ma saarna haddii qofkii uu hurdana takliif ma saarna ilaa u tooso wixii intaa uu hurdo ka dhacaa waa wax laga dhaafay maxalu shaahidkeenu wuxuu yahay aayadda qur-aanka u fiirso rabbilcaalamiin wuxuu ku cabiray qaangaadh wixii ka horeeya ereyga addifl faidaa balaqa alatfaalu minkum alxuluma wixii ka horeeya qaangaadh ereyga atfaal baa la siiyey sidaa darteed culammada tarbiyadu way kala saaraanoo labay u kala qaybiyaan dufuula oo marxaladda koowaada heerka koowaada iyo dufuula oo heerka labaad ah marxaladda dufuulada heerka koowaadihii waa markuu dhasho ilaa 6 sano intuu ka gaadhayo marxaladda heerkeeda labaadna waa 6 jirka markuu ka soo gudbo ilaa 12 jir uu ka gaadhayo intaasaa dufuuladu u kala baxda 13 jir in badan oo ka mid ah qaangaadhkaaba bilaabma qaangaadhka ayaa bilaabma haddaba marxalatu shabaab waxaa sidaa ka muuqataa ilaahay qur-aankana meelo kale uu ku tilmaamay waxaa ka mid ah suurati ruum oo ilaahay subxaanahu watacaala yidhi allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba yakhluqu maa yashaa ilaahay waa kii idin abuuray waa kii ilaahay idin abuuray min dacfin taagdaradaasi waxay qaadanaysaa marxaladii dufuulada uma jacala min bacdi dacfin quwa taagdarro dabadii ilaahay wuxuu idin siiyey xoog marxaladana waxaa qaadanaysa marxalatu shabaab uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba marxaladana waxaa qaadanaysa marxalatu shaykhuuqa marxaladii shaykhuuqada ayaa qaadanaysa marka waa marxaladaasi waa heer dhexe marka waa heerkii dhexe aayad kale oo suurati qaafir ku jirta ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wahuwa aladii khalaqakum min turaab uma min nutfatin uma min calaqa uma yukhrijukum طifla uma litabluguu ashuddakum uma litakunuu shuyuuqa ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون أقول فرصة وحال الشيء أصل كأني هلكي لقى أبوري وأبهن آدم أعيد لقى أبوري ودرية ديسي نبي آدم درية ديسي ومن ماء مهين لقى أبوري من نطفة لقى أبوري مركز النطفة لقى أبوري درية ديسي إمسي مريان wuxuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala uma yukhrijukum difla markaad manidii soo dhaaftaan ee calaqa soo dhaaftaan intaad uurka hooyo soo dhammaysataan caloosha hooyo waxaa ka soo baxaysaan idinkoo ah diflan ay atfaala marxaladda dufuulada markaad dhammaysataan uma latabluguu ashuddakum baa gaadhaysaan waa marxalatu shabaab waxaad haddana u gudbaysaan uma litakunuu shuyuuqa waa marxalatu shaykhuuqa idan waxay culimmadu yidhaahdaan dhalinyaranimada ilaahay sheegay inta sheegay waxay u dhaxaysaa laba taag darro bayna dacfay waa inta cumriga ugu qaalisan waxa horteed dhacay taag darro waa dufuula waxa dabadeed dhacay shaykhuuqa waa taag darro
وأنت عمرك وقارسا هدي لنطه أي لميس نلاش الذي لميس هدي توسطه نلاش أي توسيسه marka sida u fahanno waliba way ballaaranaysaa cimriga insaanka sida la inoo sheegay 70 umadu ma dhaafaysaba in yar baa dhaafaysa 70 maadaama dufuuladii 12 ku eeg tahay shaykhuuqadina ay bilaabmayso ma bacda 60 lixdan wixii ka dambeeya inta u dhaxaysa waxa qaadanaysa quwadii iyo xoogii waa cimriga badidiisii marka waa xoog cimriga badidiisii way marka insha Allah nusuustana ahamiyada ay leedahay hadaba marxaladaasi waxaynu dib ugu noqonaynaa bal shariicadeena iyo kitaabkeena iyo sunnaheena maxay ahamiyad waqtigan leeyahay koow waxay leeyahay horta shabaabnimadu waxay ka bilaabmaysaa qaangaad maadaama qaangaadnimo ay ka bilaabmayso oo ay soconayso qola tira 40 bay ku eeg tahay iyo qola sii dhaafisaba waxay leeyihiin ahmiyada ay waqtigaaga qaybta leedahay koow waa bidaayatu takliif qof iyo halka taagan takliifkii ilaahay iyo sharcigiisa wuxuu ku fuulayaa maalinta qaan gaadho halkaynu ka nidhaahno markaynu caruurta la hadlayno wariyaa malaa'igtii garbahaagi way fuushay wixii ka horeeyay hadaad isu haysatay inaan takliif ku saaray maanta waad qaan gaadhay malaa'iktii garbahaagi way fuushay ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waxaad ku hadashaa way qoran yihiin waxaad samaysaa way qoran yihiin haday xasanaad yihiin ajar baad ku leedahay haday sayi'aad yihiin dambi baad ku leedahay waa lagu daba socdaa waa la daba joogaa هذا هي سلام أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد يقولون وإلابين عمل بيسمين أيان وإلابيان أنا قلنا واتركوبينا أحصاه الله ونسوه إلهينا وقوي ينوى إلابين والله على كل شيء شهيد إلهي وحكستوى مرخاتبوك يهي وما دامع دالين ياراني مضو كبل عب ما يسوق كان قاعد لماذا شيء كوبان عمري كصافوليا أما جرو أما هجران أما كفائليس أما هكفائليس أو ضيع وتكليف ما لتتقان قادو قلب باكو دوتشور دالين يراني ما نواد بلاوضي هذا الكاجي وحساب سنية هاي فعل كاجي نو حساب سنية قولا وفعلا والحساب سنتها ميزانك حسناتك وحي خيره ويكون فوليا وحي شرهنا ميزانك سيئاتك أي يكون فوليا والله ما هي أهمية ولا دليل يراني ماذا وحي أهمية قلنا هاي هي مرحلة القوة ويتي حوجة وحي كور رياواتك دري وضفوله وحي كتم بياواتك تدري وشيخوخه ومرحلة عمرك وجودها بسنين وجود ويني وجود في الفرعوني بدني وجود دقائق بدني هذا كفى إلى سوسيدا وجود ناقصن هذا في آخرة بكوتا الله فكذا كوال أذاله فكذا لبعض هو يدا يا أبها باله فكذا صدحات qoyskiina leh rajada afraad mujtamaciin iyo bulshadiina leh rajada afraad ummadda ka tirsantay baale hadda dayacdana dayac koobaad adaale dayac labaadna abaha iyo hooyada baale dayac saddexaadna reerkiina iyo usradiina leh dayac saddexaad bulshadiina leh dayac afraadna ummadiina leh dayac afraad ummadiina leh ومانتا waxay yiraahdaan culimadu marxaladda shabaabnimadu bini aadamku horta waa raasamaalka nolosha ka ugu sareeya ummaduhu waxa weeyaan xadaarada iyo albaxnimada iyo horumarka iyo dhaqaalaha wax kasta bini aadam buu laf dhabar waa bini aadamkiina waxa laf dhabar waa dhalinyarada mar boqoladii ku guuleysata ee xaggooda u badato haddii xagga fasaadku bato
وبابا هدي حق صلاح بطنا وأقول قدر كسدحان وحوي شباب نمذو وسر أذك ونلاش كملا إلا تاريخ ذي بلو كسر بلو آدم إلا محمد صلى الله عليه وسلم كسر جبه دعوة ذي ما شرته إلا عدة أبوه الرئيسة أقبشا وعلى اليرد وعمرنا أنت أبدها بسنة حتى أفكارك قادة شديدة رأيك قادة شديدة مبادئك قادة شديدة dadka ugu hor ajiibaa waa marxalada shabaab tusaale waxa inoo ugu filan caawa kama wada gaadhnay asxaabul kahfi baa inoo ugu filan ilaahay quraanku ku soo keenay suurada la yiraahdo suuratul kahfi quraanku dhamaantii waa wada cajaayib oo waa ka wada warhaysaan suuratul kahfina qasaska lagu keenay afar qisa ugu muhiimsan oo laf dhabar ah oo dhamaantood wada cajaayib ah awwal qissa waa qissatu asxaabul kahfi oo ilaahay kaga waramay niman dhalinyaro ah oo iimaan la yimi oo waliba guriyo madax iyo dad heer sare ah ka tirsanaa oo ilaahay yiri innahum fityatun aamanu bi rabbihim wazidnahum huda innahum fityatun aamanu bi rabbihim wazidnahum huda wa shabab ilaahay rumeeyay anaguna iimaan aan u siyaadin marka isu soo taagtay in mabda'ooda ay ku dhintaan iyo in mabda'ooda waa xilliga gudahabisan ee qofku uu mabda'a qaadanayo markiiba bila taraddud uu ku qaadanayo waxa marka halka culimadu ay yiraahdaan waalidka waxa saaran marxaladda dufuurada laga soo bilaabo carruurnimada in xoog geliyo ilmaha sidoo mabda uu shaqo lahaa sidoo dhalinyaradu waa halka la isku haysto haday toosaan ummadda oo dhan way toosaysaa haday leexdaan ummadda oo dhan waa leexaysaa ummadda oo dhan way leexaysaa waxa kamid ah walaalayaal fawaa'id ahmiyada shabaabnimadu inoo leedahay waxa kamid ah innaha imaadul ummaduhu waa lafdhabarkooda way waa halkay ku taagan yihiin maanta nasiib darrada ina haysata waxa kamid ah reer galbeedku maanta hogaankii sare iyaga haysta waa dadkana waxay ku hogaaminayaan dariiq baadi daldalaalka adduunyada socdaan da'yartii iyo da'dii weyneyd waxa badanaysa sida taqaariirta sheegaysa da'dii weyneyd ayaa waxay albaabada u furayaan shabaabkii kale inay u soo xiroodaan waana u soo xiroonayaan shabaabkii dadka kale ee u soo xiroonayaan way soo xiraysan waagin ay ku kala dheeranayaan waa dhalinyarada ummadda dhalinyaradu ku badan tahay khayr baa mustaqbalkoodu uu leeyahay ummadda dhalinyaranimadu ku yar tahayna afraad ay tilmaamayna waxa kamid ah barakallahu fiikum ahmiyada ay leedahay u fiirso imisa quraanka ku timi imisa sunnaha nabiga ku timi sallallahu alayhi wasallam saari xadiiski ya ma'shar ash-shabab jamaacadi dhalinyarada jamaacadoodii شهودنا سيدا لو دويني حديثك كبريا من استطاع منكم الباءة فليتزوج ورنيكي إن يرى مصاريف أولي كريا ها اسكت جورسو إلى بقو بركين يا سبحانه وتعالى فإذا تقول كي كهل يسامحوني هاي كو إشابي وفور سنة فإنه أغض للبصر فرشي جاقنا ولو سنة يا وأحسن للفرج haddaad kari weydo oo nafaqo yar aad isla weydo maanta inagu nafaqo badan baa la raadinayaa looma baahna xagga soonta u bayro shahwadaadii cuntada yarayso soon waxay u tahay sidii dhufaan oo kale shahwadaadii baa jabaysa waxaanu xadiidka ka qaadanaynaa rasuulku ahmiyadda uu siinayo suubanuhu sallallahu alayhi wasallam شباب مركو قفكم مرحلة الشباب قالوا مرحلة الشباب ما واحد كبل أما يساقان قارك وحسيي مفتاحي دولا مركبة الشباب من ماذا قانقار مركو قالوا مركبة واحد بلا ما يساق شهوات مرض شهوات بلا بنطو وحقوها الرئيسية شهوات وكم بلا ما يساق وشهوة النساء هل يدوم الوايس كوميت إن أنتنا وكم بلا ما يساق إن أنتنا وكم بلا ما يساق
وتوجهه صلى الله عليه وسلم دينته إنه قف كشهودي سلا مع عبرين نكاح بالفرق نكاح هنا ولا حلالين صفاح هنا ولا حرم حرام بالي كاسوا حرام باب كيسو كجوكسو كان باب كيسو حلال ما أنت لكن نصيب درada in haysatay waaqiceen ay ka arkeen waxa weeye guurkii waa adkaaday xumaantiina way fududaatay waa musiibo dhalinyaradii haysata waa waaqic qadhaadh ay ku dhex jiraan waa waaqic qadhaadh in guurkiina adkaado xumaantiina fududaatay واقع قدر واقع معانينا وحياهي نقول كفض هذا تكلنا أتكاته أولي بشرع بوعد كي ومحال يري هدول اللي يري هاي بقول هذا الكتر سند مستغفر إنها الله قدر وحد حدوي هدي ومحسن يعني هذا ونحن يدقح كدلا وولي يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قح مؤمنيتي على المسلم ما أنت هو حوي علم الناس عارفين هيئات بقى ما شقيسان أمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هذا meelaha marka marayso dhalinyaradu way ku qayliyaan waad arkaysaa sidii u karaahiyeysanayaane u nacayaan laakiin meedan karaahiyeysatee hadii dhagax leeydi surayo dhagax hadii dadka la surayo ee waana shaqaynayna shaqadii baan socon sidii la rabay u soconayay ragmeed ma talaabo hore loo ragmeed ma talaabo fasaadka waa in la jara halkiisa lagu joojiyo waxa kamid ah xadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu boorinayo marxaladda shabaabka in laga faa'iideeyo قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري صار 7 يذلهم الله يوم لا ذل الا ذله تضرب الى هوا وهرنيه مالنتا ان هر كلا جيرين الا هركيسا mooyaane todobada waxa kamida shaab nasha fi ibadati allah shaab nasha fi ibadati allah shaab ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa todobada qiyaamaha loo harinayo ku jira waxa kamid ah xadiista sallallahu alayhi wasallam suubanuhu marxaladda shabaabka qiimaha ilaahay inagu boorinaya qala sallallahu alayhi wasallam la tazalu qadamay 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al illa la su'alu an 'umrihi fima afna 'umrihi simhu ku dhameeyay وعن شبابه بل يرني مديس محوك جوديالك بل يرني مدي باكمل ومرحلة عمرك وقو قال سنة إن هل كان مركين مرينا هرجي الشباب وينا افتيمي أهمية ورسولك السيئة وحكا قرنا صلى الله عليه وسلم واقعها تذكر بربارية دي بقول نغضاء تذكر رسولك بربارية صلى الله عليه وسلم waxaad soo qabsataa Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib Muawiya ibn Mu'adh ibn Jabal Usama ibn Zayd قائد الجيش برسولك خدغاي وعمره 16 سنه 17 سنه ما انت اللي بقيت 18 كاين ملك امين أبو بكر باعيلا ككمدا ومدحدا لوغا دغاي عمر با كمدا علي با كمدا خلفاء الراشدين با كمدا واتي سيرada waa ku haysaano uu geeriyooday sallallahu alayhi wasallam iyada ciidankii Usaama oo madax ka yahay khaliifkii waxa laga dhigay Abu Bakar markaas saxaabadii ilaahay ciidankii uu baxaya ruub ku baxaya markaas la yiri bal wax ciidanka bedel markaas uu yiri maano imaka madax noqday baan sunnii rasuulka khilaafa saad bal qaa'idkum ka bedel soo war talaxmidin ma rasuulka ilaahay minuu magacaabay badeed adigu casri قصبة المؤتة صدح لي سحابي رسولك وليبي كلهم شبان قال يرى يا هاي كلهم شبان دون 20 أنا لباتن قاري واقعي صحابة مركز دب يقولون الله يركن مي هيسن إن بدن بين كل علينا وحنا إنه هيسن مي هيسن
laakiin madaahir jawfaa baynu maanta inagu haynaa iyaguna waxay hayeen noloshii xaqiiqiga ahayd ee dhab tahay hadday ummadda dhalinyaradu u hagaagto wax waliba way hagaagayaan wax waliba way hagaagayaan runtii bal aynu maanta waaqicayna dib ugu soo noqonno waaqaca maanta yaalla dib aynu ugu soo noqonno waa qaybta labaad ee alshabaabu bayna alwaaqici waalamal maanta waaqaca dib ugu soo noqo in waxay idhaahdaan jiilkii hore saxaabada ay ahayd inaynu barbar dhigno maanta jiilka nool laakiin barbar dhigi kari mayno waxay idhaahdeen ma habboona in la isbarbar dhigo seef af badan iyo qori in la is afdhigo seeftaad markaa wax u yeelaysaa seeftaad meel kaga dhacaysaa ma haddaad isbarbar dhigto qori loox aan waxba jaraynin iyo seef haddaad isbarbar dhigto seeftaad meel kaga dhac karta maanta asxaabtii dhalinyarada ahayd haddaynu soo qaadanno ee diintan wax u qabtay haddaynu soo qaadanno oo inagu kuweenan masaajidka ku jirna aynu barbar dhigno asxaabteen wax yeelaya waa naqsi fi saxaaba asxaabteen wax u dhimaynaa innaga ceeb inagu tahay waayo laa muqaaranata baynana wa baynahum dariiqooda ay hayeen iyo kaynu hayno wallahi wax laysaga hoyanaya maaha cirkiya dhulka isu jirnaa cirkiya dhulka ayaynu isu jirnaa waaqicayna maanta muxuu yahay shabaabka maanta saddex baynu u kala qaybinaynaa dhalinyarada maanta shabaab mustaqiimahoo toosan wahum qila waa in yar shabaab munxarifa oo leexday wahum kuhur waa inta badan iyo shabaab mutaradid shabaab dhexdhexaysanaya oo dhinacna mar u jira dhinacna marna masaajidka kula soo gelaya marna ka baxaya oo iyaguna aan yarayn oo kuwa aan ka yarayn leexday aan ka yarayn markaynu eegno ma wada odhanayna dhammaan waa la ummadoo ciwaanka khudbadeenna wuxuu yahay bayna asuquud walirtiqaa anigu weliba ereygaas suquud inay maaragtay wax kale ummaddu yani hoos way u yara foorarsataa laakiin yani way bukootaa laakiin ma dhimato ummatu muxamed sala allahu calay wasalam laa tamuut ma dhimato narju min allahi inaynu mar dambe qiyaadadii haddana caalamka iyo iswadii iyo qudwadii dib ugu soo noqonno ilaahay baynu ka rajaynaynaa laakiin waxaa xasuusataan muddo qarniya laga jooga imanka qarni in ku dhow sax waa kacday baraarug baa la yidhaahdaa baraaruga islaamkaa kacay dhalinyaro aad baa masaajidada loo soo camiray meel walba waa laakiin nasiib darro waxaad moodaa sida wax u socdaan waaqicaynu maanta sida wax u socdo ma aabbayaasha ceebtu fadhidaa iyo macallimiinta iyo murabbiyiinta ayaa ceebtu fadhidaa ma da'yarta iyo shabaabkaa ceebtu fadhidaa ma laynaga adkaado wasaa'ishaynu isticmaalayna ceebtu fadhidaa oo wasaa'ishii laynaga soo horjeeday baa inaga xoog badatay halkee ceebtu fadhidaa waa wax inoo wada yaalla laakiin waaqicayna maanta muxuu yahay waaqicayna badidiisu wuxuu yahay maanta markaynu sifayno dhalinyaradeenna wuxuu ka tirsan yahay bulsho muslima maanta ninka dhalinyaradii wuxuu ka tirsan yahay bulsho muslima magaciisu waa muslim waa hebel waa maxamed waa cali maradiisu waa labiskii islaamka badidiisa wuxuu meeshuu ku dhex nool yahay masaajidaa ka dhisan wuxuu maqlayaa eedaankii salaaddii baa lagu oogayaa duruustii baa lagu akhriyayaa khayrkii buu maqlayaa ishiisu waxay haysaa wixii islaamku lahaa laakiin qalbigiisii iyo ruuxdiisii iyo fikirkiisii iyo araggiisii wuxuu ku xidhan yahay meel fog oo aan halkan ahay ma joogo jirkiisii wuu joogaa jirkiisii halkan uu joogaa maankiisiina yurub buu jiraa iyo maraykan iyo reer galbeed ayuu jiraa wuxuu hoos fadhiyaa ama telefishan buu hoos fadhiyaa qanawaat alfadaa'iyuu hoos fadhiyaa ama wuxuu hoos fadhiyaa shabakaat alcankabuutiyuu hoos fadhiyaa jirkiisiina wuxuu joogaa halkan
qalbigiisii iyo niyadiisii iyo fikirkiisii iyo dhaqankiisii iyo riyadiisii iyo wuxuu himiladiisii waxay jiraan meel kale bal wuxuu isu bedelay ninka dhalinyarada ee maanta jooga in uu cala duul taqliid ku sameeyo oo markiiba fuliyo maanta musalsalka heesta ah ee laga soo daaya TV-ga ee inanta fanaanada ee heble magacali ay soo dayso inuu markiiba tago jacayl baa tuuray waan istuurayaa soo kula fadhiya ayay istuuraya marada adaa u iibi maanta waxay dhalinyaradeedu taagan tahay badidooda ilaa man raxima Allah dhibtii bay aabihii ku hayaan dhibtii bay hooyadii ku hayaan dhaqaalii bay hooyadii culays ku hayaan aabihii ku hayaan deeftiina waxa qaadanaya ninaan meel soo maray jirin oo ka dheer ba deeftiisa qaadanaya markuu xanuunsado culimadu waxay leeyihiin tashbiih markuu xanuunsado hooyadii baa la cararaysa aabihii baa la cararaya ehelkii baa la cararaya dhaqaalihii iyaga ku bixinaya dhakhtarkii iyaga geynaya markuu ka soo baxo iyagii dadka ugu neceb wariyaahe ma jirkaaga la jooga maskaxdaada iyo maankiina ma cid kale la joogtaa maanta musiibada soo korodhay waxa kamid ah waxay yiraahdeen caalamku wuxuu noqday waaqici maanta waa sida wuxuu noqday bay yiraahdeen caalamkii qarya waahida dawladda way kala jiraan caalamo waa kala jiraan magacyo madaxweynayaal waa kala jiraan wasiirada waa kala jiraan wixii oo dhan way jiraan laakiin markaynu dhalinyarada isugu soo noqonno iyo guryaheena isugu soo noqonno iyo wasaa'isha la isticmaalayo dib isugu soo noqonno iyo nolosha rasmiga ee ku jirta dib ugu soo noqonno caalamkii maanta wuxuu noqday qaryatan waahida bal waxay leeyihiin culimadu iska soo dhaafay qaryayntu soo dhaafay buu wuxuu noqday qurfatun waahida qurfayntu dhaafay ayuu noqday taaya waa maqana jooga uu kula jooga waana ka maqan dib buu kugu hayaa deefna kuga qabtay maanta dhalinyaradii intaa hadday ku koobnaan lahayd maxay kaa dhibi lahayd waxay leeyihiin culimadu waxay gaadhay heer حتى ما هي إنك بانت وحين مرمرسية كذا أنا وأنا فعلا حق وحين كشر حق بين ولا نهاي إنك الدولة دي حقوق لها وإنك بربرتي الدولة دي حقوق لها وحياة بدن إنه إلى السنة ولي إنه ما يستاجي ما لبضن إنك وحين كان نقرني بربر كأنه اتصاله ونقرني والله إنه قصة قبضة صوم لا إلى هذا ومعروف وإنه نقانا إسكت عافية تذكر الإسناد دول الخليج ما أنت دقالة وإليهين علماءها ويقول سيئين دولتها ويقول سيئين أفدا شباب كهايستا إنك إن هايستا متكتر رب هايستا dhulkii jaamacadu ka dhisnaayeen ee dhaqaaluhu ka dhisnaa ee xaasasku ka dhisnaayeen ee maamulka ka dhisnaa ayaa dhalinyaradoodii siday tahay laga yaabsay inagana hadalkeeda bada waxay maraysaa marxalad in dhalinyaradii noloshoodii ka dhigaan saharun fi layl wa nawmun fi nahaar habeenkiina soo jeedaan habeenkii soo jeedaan habeen maalintiina seexdaan حتى هذا صوت جلوس في أماكن غير لائقة إنه ميلان هبونين فرديو إنه عن لقرنا يكون حلنجة هذا الجا ورشة تكرار كا الروتين كا هير وحمريا أنا نفتي أنفعي أو هو يدي أنفعي أو أبيه أنفعي أو عائلتي أنفعي أو بلشدي أنفعي أو أمتي أنفعي خرجنا وكهيو شقتك معي والله مركان هلكا مري مال هدانتي أنا قريبي تاجنت أنا والله وطاقم والله وطاقم عندي سمان توح مريا سديت يسر تبو مريا شقتك بانكلا شقتك بانكلا qofkuna waa ila wada mid waa dhageysataan Saciid Raagan ninka la yiraahdo ala khayra siiyay Yurubta ka sheekay islaam baa ay timi buuro waa Yurub hada waa meesha lagu sii yaacay dadkii qalbigoodii jiro
مسألة الويت الهوي إن كين بدي يدعي وحن صنيا بل إن حنون كان لكن قال وأنا بيجي رأى ذلك هاي بل إن الله يسوي شيء مسألة كل هوي يا وحسية سيت الهوي أنا وحي يروى الولاقة ما خس هوي ما ينجربا سيت الهوي واسكني يروى وسدحي سد الجلوي ما بقى قاريا ورقان قاركو شباب نمدو كوب بالعوضة وسيدا يقولوا فرديان بي شيخوخدي قال يعني مكان هذا هو الواقع واقعي واقع وحانا كينيسا runtii oo ay culimadu leeyihiin inta laynagu soo duulay oo aaladaas inagu soo duushay markii hore waxay ka soo bilaabmi jirtay oo culimadu ka qaylin jireen wax la yiraahdo bluetooth oo markaas la soo dush wax yar oo dusha salas shabakad cankabuutiya maalin ba ka dambaysa ma jirto ilaa musiibada way si saddex jaabaarmaysa marka waxa soo baxay shabaab halkana jooga Yurub iyo Mareykanna jooga kuma qan isa sawiraya guriyo Yurub ku yaala isku sawiraya waxaan sawirka kaga qaylinay waa madaahir jawfaa bay culimada madaahir jawfaa muuqaal hoosta ka cunan Allah wax ka hooseeya هذا هو واقع الشباب اليوم بارك الله فيكم واقع على اليرد البديد وما أنت واصلة ما صبح فكرة عني إلا بالرواية الترجمية العلماء وحيالك وجود درما حكم ذا قفض دليراه سوق مريء يسدوا لبسني أدي ليس أو دلبس كيما كأدي ليس دمانتنا أو أدركتنا حتى كيما ساج كسوق قلي أتكو عركتنا أتكو دي ليس ما حكم ذا بل نين مركز قيمة يصدرك وحرية $100 أنا كيرين markuu rukuucana fatadii uu qarayso waa maxay labiska aan cawradii qarinaynay haddana qaaliga ah waa maxay labiskan haddana qaaliga ah ee salaadii ku asaxay waa maxay labiskan inkaarta ah ee ay libaasu taqwa ka maqan tahay walibaasu taqwa dalika khayr قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير مصيبة حقيقة مالك لك ما إيمان ودولان كاللي نقصوا قاضي يقوليه إني قالي يا شباب كلا قتل هذا ركتام أمة شباب وعلان على ماذا ما أنت نصيب درادة ترتوحا كم ذا صحوذي عينو قرني ما أنت كسوغيني أينو فليني ما أنت إن دور التمكين لا تماضى وإنه ما أنت قاعد تكون قبرنا كلا ريبي ما يو لما أنت نسكو كيم وضدم ما قاعد دون عين السيدان دعوتنا عين وضنا ما قاعد دون تهاسيدات هينا كلا صارين ورقرني بين مرينا محين بهالشقة عنك ويقول لي قلان نبي محمد صدق حيلا واتنسى نضل ومدك وبدل حقه ويسدو كحرم العاب ويسدو حقه ويسدو جبر صنع حاجة كويس جرسنا وحكى لما وحويان الشباب كي أي مصلحين وحبدلة هي يجي للبدلة هذا بني إسرائيل جب تاريخ ذو ونوضة دور ونوضة تاريخ ذو مركي فرعون لقبطي اللي حريين اجهاد لفري اللي بيت المقدس وكا عدو gacantii inuu ku jiraa ka soo xireeyay inuu kala soo saara hal buuxay yiraahdeen maanta af buuxa ayay ku yiraahdeen nabi Muuse ila suurada Maa'ida inuu ku taalay idhab anta wa rabbuka faqatila inaha huna qa'ida hada waa ma oran karna qiyaadada xun waa nabi Muuse nabi Haarun umad qiyaadadu ka xuntay ma wala bar rasuul لكن محين أورد كرنا قاعدة رسمية هاي إلهي وكسر حكومي إلا 40 سنة يتيهون في الأرض أفرطن سنة صار معايا وسجيل كي يسبدله شيل كي لو يسبدله إنك بالعكس حتى يهود باب بيت المقدس نجاها يستا يجا وقت جاب بيت المقدس وحكاها يستي
nimanka camaaliqada la oran jiray inagana maanta baytul maqdis yahuud baa inaga haysata waa ka wada dharagsantihi gaala inaan waxba iskaga keen tirinayn inay u saxiixayaan yahuud ilaa waa caasima abadiyya lil yahuud inagoo milyaar kor u dhaafnay war xagaynu ka weysa jabnay milyaar baabaynu nahay waa maxay milyaarkan bilaa dhaqdhaqaaqay lisaanul xaalkeenu wuxuu leeyahay يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون إذا نحتاج جيل النصر بين وبعض إلى الآن جيل النصر بين وبعض جيل النصر اللي هو بدأ جيل النصر بين وبعضنا جيل النصر حبوك إيمانية جيل النصر حبوك إيمانية شبابك ما أنت هوس بيوصل هوس ayay u socdaan walaalayaal haddaba si aynu ugu gudubno maanta waaqiciini waa ka qaybta saddexaad baan gulbayaa dheerayn maayo waa al-amal xagga rajada ku xirantay horta rajada amaluna billahi subhanahu xasbuna allah wa ni'mal wakiil xasbuna allah wa ni'mal wakiil amalkeedu waa alle بعد الله تبارك وتعالى إلهي الدبدي وحين أباها النهاي إن وحغيرنا إن وحبدل أمل كينا لما تغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولله سنن بودغاي هدون نكو هذا إله إلميسي إله عرورسي أو غورسن وايو عرور ما داليا سنة التغيير وإن مرة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بدل كنوح على بمرمان إنه كدعوا الشباب أيها الآباء وأيها الأمهات وأيها الدعاة ذاتك الدعاة آبياشا maamul madax dhaqameedka madax maamulada guriyaha bulshada dhammaantood haddaynaan dhalinyarada culays saarin oo aynaan bedelin oo shabaab mustaqiima aynaan soo saarin nasrigu wuu dib u dhacaya waxa eegay weey dawladii muslimiintuna way ka soo qayb galayaan dawladii gaaladuna way ka soo qayb galayaan ciyaarihiiba mise wax walba wankii iyo toogii iyo tiriigii waxa qaadanaysa gaalada masuul waxa taa orodkiina ma laynaga dheeraynaya xataa orodkiina miyaa laynaga dheeraynaya xataa orodkii waa laynaga dheeraynaya dabaal haddii la soo qabto muslimiinta waa xagga dambe orod haddii la soo qabto muslimiinta waa xagga dambe murq haddii la soo qabto waa xagga dambe shaygii sidaa loo taago waa xagga dambe وروحنا وباهناهاي si doorkii qiyaadada aynu ugu soo noqono doorkii hogaaminta ugu soo noqono de hogaamin isaga ka imanaysa ma jirto wax bedel waxa la bedelayana waxa ugu horeeya shabaab dhalinyarada waa in la bedela laga dhigaa dhalinyaro qaada ah oo iyaga lagu daydo oo aan iyagu noqon imica dameeridaan raacday iyagu wax walba iska dabaga hadii dhafoorka la xiirto way xiiranayaan hadii marada la isku dhajiyo way isku dhajinayaan hadii la isqaawiyo way isqaawinayaan hadii la isjeexjeexo way isjeexjeexayaan oo markaasaad wax ka sugaysa waa dameeridaan raacday waxaan u baahannahay shabaab wax qayra oo wax xalay waxaan u baahannahay تغيير أو كم يعني ضد فكرية أو تخدير له أو عن أهين ضد وحي لاصق خد ده فلينية أيام درده إنها يستوى حاكم قالوا مدلل بقرني أو إن صار ضعفي وحبي خد ضيان وحي خد ضيان والفليان إنك يقول فليان إنك وح الله على وحنا خد ضيان ما هينه وح فليان ما هين هراي قرمي خد ضيان إن السودان كلا شرف ويكلا شرف قرمي خدرين إن سوماليا لا بربرو ويبربريين قرمي خدرين إن فلسطين يهود لقوا بيرو ويكوا بيرين حتى تخديد كي ولا محاكم له الله أعلم إله ما يلبى لنا عرفتها إلا كلا شرف وأنا صعبة ساكسبيكو
ومعروف حدود أدركيسان ما أنت مد ولي بكرد جاي مقدس الحق أنا وقت الله بكر الله هذا خير والبوالة كلا شر بدنا حاجة وياله بدنا حاجة وياله بل صومالي حدود حاجة كذا صوب لا حاجة سودهم واحد مقدس على كرد جاي إنك يبقى مقدس كرد جاينا وتخطيط كي قال ذي المفلي ورمي كيني وحن أباهن الشباب وحغيره أو فكر له أو تخطيط له أو تخطيط كيسا فلانية أو فكر كيسا فلانية أنا أهين مد لو فكرية أو وحلا خطيرية أو وحي لو فكرية لا خطيرية يصير فلانية كاسيد أباهن عمل كينو واسطة وحين ولا ليال أباهن هاي وحين أباهن هاي waxaan u baahanahay dad mabaadidooda ku adag walow mabaadidooduba ha keensato in lagu dilo saxaaba mabaadi baynu u baahanay inaynu abuuro dad mabaadidooda ku adag tusaale waxaynu u soo qaadan karnaa asxaab al-ukhdud nin dhalinyaro ayaa lafdhabar u ahaa shaab nin boqorada waa saaxiraha ayaa lahaani saaxiraha u faaliya u weynaaday sida ka war haysaanad ka dharagsantihiin wuxuu yidhi ciidan ku tababaro ii keeno oo kugu wareejiyo nin dhalinyaro baa loo soo xulay ninkii tababarkii markuu isagoo ku jira ayaa nin raahibo uu la kulmay laba madrasadood oo iska soo horjeeda ayuu tanna fikirkii ka qaatay tanna fikirkii ka qaatay ilaahay nuurkii uu iftiimiyay qalbigiisa xagga raahibku uu iishay markaas la dareemo habsan baa galay xaggan marna xaggan uu ka habsaama marna xaggan uu ka habsaama wala dareemay marka war xagad ku raagtay markaas loo takhdiidiyo wuxuu ku yiri raahibkii baa u takhdiidiyay ee waa takhdiid facaal haddii hooyadu reerku ku yiraahdaan xagad ku habsaantay waxaad tidhaahdaa saaxirkii baa idaahiyey hadduu saaxirku ku yidhaa xaggaad ku habsaantayna waxaad ku tidhaahdaa waalidkii baa idaahiyey mudduu sidaa ku waday waa takhdiid wanaagsan ilaa maalintii dambe ilaahay daabad keenay waddadii xidhay markay daabadii timee waddadii kale xidhay ayuu yidhi maantaan xaqa ogaanaya ilaahay oo hadduu saaxirku xaggaaga ku fiican yahay raahibka xaggaaga looga jecel yahay dhagaxa daabada dhulka xidhay ilaahu ku tuuray way dhimatay maalintaas wuxuu go'aansaday inuu raahibka toos raaco uu ka baxay shaqadii saaxirka karaamana alla wasiyeeyo wuxuu noqday hadduu qof daweeyo in ilaahay rumee daaci buu noqday masuulaan waxa ma daweeyo ilaahay baa wax daweeya طريقاً كوي افتيمينيا إلهي الرماه كذبنا إلهي كوي بريء إلهي تطبطن بس إلا ما أنت ذنين وسيروا عند اللي يجيني وكيري مركو شيكدي سيوركي سي مقلي بل إدواه حولها صار النقال وحولها جايسك هيصا هذا الطريقاً كوي شيء يطار عظم إلهي كوي بريء إسلام وإسلامي إلهي كوي بريء إندي بقى سعري ninkii wasiirka indhaha ayaa boqorkii ku noqday isagoo indha qaba waryaha indhii ku soo celiyay wuxuu mooday saaxirkiisa shaqada qabtay masaajidmay kama zuulin in la ciqaabo ilaa uu tusay ilmihii yaraana kama zuulin in la ciqaabo ilaa uu tusay raahibkii baa markaa lagaga bilaabay in diintiisii ka noqdo uu diiday waa la dilay indhoolkii waa lagu xigsiiyey markii hore indhaa la'aan jiray wasiirka ahaa ilaah rumeeyey waa diiday isna waa la dilay ilmihii yaraa ee uu boqorkana juhdi baa ka galay oo yara la xajaclaa xisiin u tahdiid oo horta hor ku degdegin isaga dilkiisa si uu soo noqdo markaas uu xidhxay oo buur hebla geeyo oo u hanjaba ilaah buu bariyay ilaah baa isagii ka kafeeyey dib isagoo lugaynayo u yimi haddana baddaa la geeyey ilaah baadana ka kafeeyey isagoo lugaynayo u yimi mar saddexaadkii ku yidhi aad u fiirsa mabaadidu siday qaali u tahay waxaynu u baahannahay shabaab isu diyaariya inay noqdaan qaada
أفكار له تخطيط له وغيرية مبادئ ذو عادات إلى غيري أي كل منيا وأنا قسمي مستقيم كأهل توصل كهال إحضاء منحرف كأ كان متردد كأهل لبضر بنعك الحين يا أتاجن إنه هجاتيو أمل كأمضوا أي لا ذا هنا وإسقى هدو هجاجو أسردي سيبه هجاجسي أو يدي أبيه بأبوهرين انتفاع سنية هدو هجاجو مجتمع عبادي هدو هجاجو أمضي قالوا في صاحبنا مبدأ إنتصي وشاب بقر كيف كل ورياه يدلي كريم ميس مرة بتاعنا ديدشوا ها هذا درسنا ديدشوا وحن كفر يا سماء مبدي سجى لاءات إملاءات باليرهضا وحبوا يرينيا مبدأ كان سنة وتخطيط يا فكر وحدات قرن السكان مال السكان مركز السوق وذا كانتو عين كاسمة هو سمي dadkii maxaa ka dhashay aamana dadkii dhammaan waxay raaceen shaabkii ninkaas mid guuleystay isagoo qolqabaysta hal ghayra almujtama quraanka ilaahay noogu sheegay qutila ashaabul ukhdud annar ذات الوقود idhum alayha qu'ud walaalayaal waan idinku dheereeyay runtii mawduucaana dheerarka iskale waxaynu u baahannahay maanta laf dhabarteennii waa la jeesiyay waa la kaxaystay aaladda iyo gaalana kaxaysatay allah inooga soo reebo allana shabaabka ha inoo hagaajiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala